family friends ka awi mama weekend ka inta imaanaa asxaabta hadda waxaa gudaha u soo galay maqaayadda casriga ah ee Coffee Point qaybta waa qaybta family sida arkaysaa maqaayadan waa maqaayadda ugu weyn Mombasa ganacsadaha caawa aad u mahadcelinaya meeshan uu nagu soo dhaweeyay hadda dad aad ka kacaysa waa arkaysaa aad waxaa jirto qayb VIP oo dhinacan kan laga sii galayo hadda waxaa galay qaybta VIP-da oo ah qayb aad u diyaarsan sida aad arkayso waa meel haddii aad imaato aad ugu maarmayso in madaxa uu xanuuno waa arkaysaa VIP-da meel kale aan u malaynina dadka qaar waxaa laga yaabaa in daacatoosho ay tagtay waa Coffee Point oo ah maqaayadda ugu casriyaysan Mombasa wax walba ka helaysaa cunooyin ay nooca sidaan aad arkayso VIP cunooyinkii waxyaabaha ay si maxaa kamid cunooyinka Coffee Point laga helo waxaa kamid ah sida mandiga bariiska yemeniga laga helayaa zurbiyan aleso arasto leylo laga helayaa delivery leenahay free delivery leenahay xaafadda ilaa townka xaafad kasta free lagu geynaa free delivery marka Coffee Point is available for you anytime you can order anytime any place so we are ready to welcome you atoshare soo dhawaaw gacan furug soo dhawaaw waxaan ku faraxsanahay caawa inaan soo dhaweyno atoshare iyo maslaxo meesha waa meeshiini turkiina in joogo mar walba ku soo dhawaado aniga waxaan idhaa Cabdimalik waa managerka oo Coffee Point tas welcome hadaa Mombasa imaad oo Coffee Point aad ka qadeynin wili Mombasa ma imaanin waa u jeedaa meesha sida ay u diyaarsan tahay macmacaan xitaa waa yaalaa fadhigan waa fadhi VIP ah sida aad arkayso madaxda iyo martida kale ayaa halkaa loo diyaariyay oo loogu talagalay haddaba maqaayadda casriga ee Coffee Point waxay ku taalaa Mombasa ama la soo xiriir lambarka shaashadkaaga dhammaan macaamiishii Dr. Amiin Samakaar dhaktarka carruurta waxaa ku wargelinayaa inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo Samakaal Hospital oo ku taala dalcadda Taleex ka soo horjeedka idaacadda Danan xarunta Beeko wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka ah eberlexal 7 69 fiiro gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka carruurta waa uu shaqaynayaa weli dhaktarka